لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. حاول قد بيا بنت كلابات أكوب أنت أما investment مالية. طبعا مركز عن هذلينا ذاتك مالكو دغاليستي الحكم عيني الدو وحبا دغاليستنو وحيسي قاد إي سيجار إي بلو وكل ما يحس وحبا منتقانا ودغاليست ماله مركز ذاتك مالكو دغاليست ديت ماد مركز مالكو دغاليست سير لو كبعياه وحويا سير لو كبعي مالكا لبس سيابوت قف مالك إنه أسوق كل شقيسته ونفسديس أو باشره عمل كدرت وحيو هيستي سوق كل شقي وقد قديو تجارة وحيالك استبع إيه إنه عدك الأوليبته وعدك ليتا أما الشركات كلها قال أما يرى هذا متكستبع لباس أخيمات وحيال هذا هاي advantage disadvantage يعني سلبيات إيجابيات وحي كونك سنتهي إيه وحي كحنتها markii qofka maalka leh oo nafsadiisa baashiro oo shaqada wado waxyaalaha ay ku wanaagsan tahay waxay ku wanaagsan tahay inuu qoftu maalkiisa soo ku shaqaysto koow uu ugu dadaal badan yahay qofku maalkiisa xagga ku shaqaynta iyo xagga xifdintaba asaga ayaa ugu dadaal badan cid kale sababta juhdigiisa oo ku soo dhinto dhibaatada u soo mar og yahay marka horeeytay marka uga dadaal badan yahay cid kale waxay kale ku wanaagsan tahay arinta saaxiib maalka nafsadiisa inuu maal ku shaqaystaan ku jirnaa wali haddii qasaaro ku timaado maalkii ku shaqay maage oo dadaale khasaara iska timid xag alle ka timid wax waswaasa ama اتهام ama walbahaara ma qabiyo laa yaluumu ilaa nafsu low shaydaan ku sheekayn maayo waa lu khiyaane ninkaad maalka u dhiibtaa khaa'in aha waxaas oo dhan nadiifu ka noqonaya raaxatul baal saddex kalsooni ayuu helayaa inuu wax kala wadi karo qofku hadduu maalkiisa qofta ku shaqaysto oo alxamdulilah ku najixiyo wuxuu kalsooni ayuu helayaa khibrad ayuu ka qaadanayaa maalkiisa siduu u taqallubanayay marka kalsooni iyo khibrad intaba waa helayaa nafsadiisa ku kalsoonaado nin maalkiisa ku shaqayn kara oo wax kala wadi kara inuu yahay afar faa'iidada uu soo saaro maalkiisa markuu ku shaqaysanayay faa'iida ka timaada keligiisa qaadanaya cid la qaybsanaysa ma jirto intaas ayaan ka mulaaxadeeyey inta waxyaalaha ay ku fiican tahay maalka qofku inuu ku shaqaysto nafsadiisa oo asaga u baashiro camalkii maxay ku xun tahay arrintaas qofku inuu camalka baashiro oo keligiis wixii uu lahaay oo keligiis ku shaqaysto ama disadvantage-ka maxay tahay kow waqti badan oo si kale u isticmaali lahaay oo uusan helin anuu xoolihii isaga ahay waa inuu safraa xagga waa inuu geeyaa xagga waa inuu musaawamo la sameeyaa negotiation orod qajajac waqti badan ayaa mataqaanaa uga faa'iidaysan lahay ama inuu wax barto ama caruurta inuu si fiican u tarbiyeeyo waxyaalahaas oo dhan waxaa suurtooda waqtiga inuu ku cariiri noqdo waxaan ku dhex jirnaa waxyaabaha disadvantage-ka ama salbiyaadka aynu ku fiicnayn inuu qofku maalkiisa isagu wato tan labaad fikrad iyo juhdi hal qof waa laga fiican yahay yani markuu maalka aad isku darsataan dad kaleeto oo nin la arkaa fikrigiisii iyo meesha keeno iyo juhdigiisii way ka wanaagsan tahay markii hal qof keligeed fikraddiisa wax ku socdaan tan saddexaad maalka lagu shaqaynayo aad buu u yaraan karaa qofka hadduu maal isagu keligiis juhdiisa ku soo saaran yahay وبالتالي wax weyn laguma qaban karo mashaariic waaweyn oo asagana wax soo saar weyn oo ka helo ummadana anfacda laguma qaban karo badana maalka qofka uu soo saaray tan shanaad waxay ku cuntaa arrintaas maalkiisa oo dhan waa inuu howlgeliyaa qofku Sweden ka shaqeynay xoogaa $20,000 meelaas oo $15,000 wuxuu yiri $15,000 ku howltagayaa
ma dhici karto inuu yidhaahdo war arrintan waa khatare $1 keliyaan ku shaqaynayaa inta kaletana bangi iyo leysa ama meelaan dhiganaya لأنه يعني وحيالا مالي رداد مال يعني دو يري رأس مالك جلست ماشى ربح هذا ويرانيا مرك مالك يسون وإنه هول جليا هذا مالك يسون هول جليا وحو معرض وياهي خطر وياهي منطقة معرض وياهي إن خطر كنت ماده توتال لوس مالك يسون إنه هل مالك ليه أو واي وكخسار يعني وحنجي نوح اللي هذا spread of risks يكون عابان يعني خسارة ذي إن لا متقنا باهست خسارة أما خطرت إيمان كرت إن باهست مثلا ممكن $1 هستا وحشاس لي هذا أما يعني لا شركو حال شركو بيا شركة دان كون $1 قف كان $1 كدر سنة شركة هذا لو كون $1 كدر سنة هدي مركا دعضو شركة اسمها كمية أبدك كسان كدر سد العجة إن وخساران حنوفا كان يا متقنا شركة كلت أما ضدي كانوا لشركوبي مركا تاس مجرتو يعني نقول سقف كانوا هالمرة جلش هالمرة أي معناها تاس عوير تاس دنبه أو أقفكوا سبريد أوف ريسكس وأوح شريعة قرآن كمان كفامين لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة سيدنا عوجاي الفاظ استعمالي عفوا وإنجليز كمان كوران كعور دارت كل شيء وحق اقتصاد لما أنتم مدون في الكتاب والسنة وفي الأثر وفي الفقه أي وحك استقول لجيه ما فرضنا في الكتاب من شيء عغير الفاظنا ما لها كسو قاطو معذرة لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة يعقوب عليه السلام يولجس منكو يوسف عليه السلام والسعودين هل بابك قلني دور الباب كجلا هدي رجع غير كده حكود عن رجع كله هو في كذا ساسو كلويان spread of risks